magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose hoolka xarunta maamulka gobolka ayaa maanta lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegay gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax mas'uuliyiin uu kamid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Maxamed Ciise ayaa ka qayb galay munaasabada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka iyo maamulka caasimadda gobolka Shabeellaha Hoose ee Marka ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay duqa magaalada Marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafow maanta waxaad fadhidaa xaruntii gobolka Shabeellaha Hoose ee degmada Marka aad ka dhistay gacantaada ku dhistay afkaada ku dhistay ee maanta hoos fadhidaa waxaadna ku wareegaysaa xilkaadii cusbaay oo maanta qaadan lahayd mudane gudoomiye waan ognahay waana qirsanahay gobolka Shabeellaha Hoose waxaad ka qabatay markaad joogtay intaad ka maqnaaday gobolka xaruntan ayaa dhis ugu dambeysay oo adiga gacantaada ku dhistay insha Allah waxaan rajaynaynaa haddii meesha inaad ka qaadido hore aad u sii socoto gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellada Hoose Axmed Cabdi Mudane ahna kusimaha gudoomiyihii hore ee gobolka ayaa xilka ku wareejiyay gudoomiyaha cusub isagoo ka sheekeeyay waxyaabihii u hirgalay inta uu xilka hayay gudoomiyihii hore Maxamed Cabdiraxiin Nuur waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gudoomiyihii hore Maxamed Cabdiraxiin Nuur oo aan maanta wakaaladiisii ku wareejinayo gudoomiyaha cusub ee Ibrahim Aadan Cali Najax waxaan leeyahay gudoomiye hortaada Ilaahay khayr ha dhigo xilku waa meerto waad soo martay fursadan oo kale in xilka lagu wareejiyo waxa kugu wareejiyay gudoomiyaha Cabduqaadir Siidi maantana waxaan ku wareejinayaa anoo wakiilka ah gudoomiyaha cusub mudane Ibrahim Aadan Cali Najax gudoomiyaha cusub ee hadda xilka la wareegay Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa u mahad celiyay dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabada sidoo kale gudoomiyaha ayaa ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono horumarka iyo dowladnimada maamulka gobolka muddadii hadda walaalkay Maxamed Cabdiraxiin joogay waxaan isleeyahay shaqo fiican oo qabtay gudoomiyaha sidoo uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga wuxuu ahaa nin culmaa oo akhyaar ah saddex wasaaradood oo Koonfur Galbeed soo hogaamiyey fursad kalena loo siiyey inuu gobolkan hogaamiyo waqtiga ayaa halkaan ku ekaa waxaan u rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan waa nin aad dowladnimada u jecel waxaan ku rajo weynahay inuu dowladnimada ku sii dhex jiri doono annagana waxaan idin ballan qaadayaa wax walba oo awoodeyna oo dowladnimada waxa uu dhimay annagoo isku duuban madaxweynaha wakiilka golaha wasiirada Koonfur Galbeed wakiilka maamulada degmooyinka wakiilka inaan fadhigan idinkugu keeno haddii alla idmo waad mahadsantihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Maxamed Ciise ayaa gabagabadii goobta kelmado kooban ka jeediyay runtii degmada Marka hore sidaan ku ogaa maahan waxyaabo badan iska bedelay haddana hadduu alla idmo wax badan iska bedeli doono waxaa la idin keenay oo la idin soo magacaabay gudoomiyihii hore aad u taqaaneen gudoomiye madaare gudoomiye Ibrahim Aadan Cali Najax runtii Najax degmada Marka aad baa loogu yaqaanaa waxyaabaha badan uu soo qabtay annagana ka wasaarad ahaan saaxiibkayna noogu dhow waaye waxa loo soo magacaabay waxay tahay waxyaabo badan iyo inuu yahay nin howlkar ah runtii waxaan leeyahay gudoomiye hambalyo Aweys Muumin Xasan Aweys Okay warbaahinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gobolka Shabeellaha Hoose